kulanti haboon daawadayaal waad ku mahadsantihiin sida aad channelka noola kordhiseen iyo meesha aad nala soo gaarsiiseen. Soomaalidu waxaad tidhi haddii aad hilaab xun tahay inaad wax qarsanayso ayaa la moodaa. Sidaasaad ciwaankaba ku soo aragteen saddexdaasi qof ee lagu sheegay inay shaydaanka la shaqaystaan. Waxa keentay iyaga oo Soomaalidu inta badan isticmaala agshamo ama dhaqamo aanay garanaynin oo ku keeni kara dhibaato. Anaga shaki nagagama jiro Samiixa Khaliil iyo Maslax iyo Cumreyn inay yihiin dad Islaam ah oo islaamnimo ku dhashay kuna barbaaray. Wax shaki nagagama jiro. Balse marka muuqaalada ay sameynayaan agshamada qaarkood ay sameeyaan ama sidan ama waxaanay aqoonin, qofkii la hordhigaa wuxuu moodayaa inay wax u qarsoon yihiin. Waxaa jira dad badan oo muuqaalkani saameyn ku yeeshay oo iyagu ku jahwareersan ma runba ma maxay kalaba oo qaarkood ay soo qaadanayaan muuqaalo ay leeyihiin agshamo ay sameynayeen amaba se ficilo u eeg dadka la shaqaysta shaydaamin agshamo ay sameeyaan. Hadda dad fara badan oo waxaa jira iyagu muuqaaladooda siyaalo kala duwan u soo qaatay. bal hadda wiilkani wuxuu ka aaminsan yahay caddeyntu gudbinaya bal hadda dhegeysa waxaan arkay commentiga ama isla wareega ay dhahayo wax kama jiro, laakiin xaqiiqda dhabta waxay tahay wee uu ka jiraa. waxaa kugu filan caddeyn Samiixa Ibraahim Khaliil magaceeda gadaal u akhri ama inta kasoo akhri ama inta kasoo akhri wuu isdaba marsan yahay. waa calaamadaha awalan lagu garto dadka ku jira. okay, imisa iyada camal ah ayaa TikTok buluuga haysato kaligeed ma badna Soomaali, laakiin gabdho badanaa jiro 1 milyan gaareen la haystaan, laakiin iyaga kooxdaas kuma jiraan, laakiin iyada way ku jirtaa TikTok. haddii magaca xagga hore lagaga yimaado iyo haddii xagga dambe lagaga yimaadaba taa macnaheedu qofna shaydaan kama dhigi karayso. waxba caddayn noqon mayso hiblaayo magaciigaasana iyo hebel magaciisaasabana. bal su-aasha la weydiiyey bal hadda wixii uu kaga jawaabay أنا مقال أنا صدقت أديس شيئين سميحة عمرين مصلح مذا شادين تلا شقيان والحارب إن أنا جاهل بحسد يصير وقعتنا شادين تلا شقيان هذا وما سنتهى إن أنا جاهل بحسويان ضد كان يعني وحيابها أتكو شيء يسي مركي كوباد هذا اللايف كله يقدح ويدي معها مركي لبعض معها مركي سدحات معها وأنا يدي شيء وحنا هوبين يضرب بالربضان نقول إلهي إضالة عنايو dembiga aan sameeyo ii laablaabmayo ii laba jibaarmayo waxaan u malaynayo ma soo gudbinayo aniga, waxaan hubo keliyata ayaan soo gudbiyaa. dadkaasna muuqaalkan kaga soo hadlay iyaga ayaan siiyey codsi ah in haddii ay magaranaysa ay rabaan inaan caddaynta keena ay haa soo qoran anigoona dulmiyin markaasna caddayntaas aan keeno. iska daa qof asturan oo xijaaban oo maanta dhan quraan akhrinaya oo maxay ahaydee diinta islaamka hortaagan oo diinta islaamka u dagaalamaya u hadlaya wax wanaagsan moogi wax xun afkiisa laga keenin dad cayneen dad ku dhaganayn samaada fahmin. marka qofkaasaaba dhihi karinba waa gaal muwadaca kan ma fahamtay oo aad ku naargalaysaa. marka walaalo waxaa ila qurux badneed inaad wax kale oo different la imaatid ama waxyaabo kale ani ugu tilmaamtid intaad gaalnimo igu tilmaami lahayd ama shaydaan igu tilmaami lahayd. waxaadna tiri caddeen ayaan rabaa inaan keeno inay shaydaamaha anigu saddexdaa qof waxaan ku difaacayaa islaamnimo ayaa naga dhaxaysa. qofkuna hadduu islaam yahay waa qof walaalkaya. anigu ma ihi faniskooga ama ma ihi qof iyaga taageera, balse qof haddii islaamnimadiisa lagu soo doonto diinta islaamkaaba ku faraysa inaad walaalkaa u hiiliso oo qofka ku sheegaya waxaanu ahayna aad uga hiiliso. iyaga laakiinse mid baan ku dhaliilayaa. Samiixa Khaliil waxa ay sheegtay haddii ay shaydaanka la shaqaysan lahayd inay farmaajo xataa xilka ku qabsan lahayd. waxay dhiiri gelinaysaa shayaadiinta ama dadkaasi la leeyahay shaydaan bay la shaqaystaan. qof kasta oo caqli ku filan aan lahayn oo muuqaalkan daawadaa wuxuu is odhanayaa haddii aad shaydaan la shaqaysato caan baad noqonaysaa ama dhaqaalo badan baa kusoo gelaya.
sidoo kale maslax mideeye wuxuu yidhi haddii aan shaydaan la shaqaysan lahaa waxan baan ku afuri lahaa macnaha maalqabeen baan noqon lahaa taasina waxay dhiirigelin u tahay diintaasi la sheegayo ee shayaadiinta haddaba wiilkan isagu ku sheegay dadkaasi waxaynan ku ogeyn iyo waxayna ahaynba ilaahay baa inagu og dad islaamiynu inagu ku ognahaye isagu haddii uu doonayo inuu barnaamij uu suuqa ku soo galo uu samaysto waxaanu leenahay barnaamijyadu way fara badan yihiin waxaa doontaba la imo laakiin diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalidu ha ku xakameeyaan